masjidka barakaysan ee al aqsa waxa uu ka mid yahay saddexda masaajid ee ugu waaweyn ee muslimiinta adduunka ay si aada u fiirsadaan. masjidkan ayaa waxa uu yahay qibladii ugu horreysay ee muslimiinta, waxaana hadda si weyn dhibaato uga geysanaya ciidamada Israa'iil. saacadihii lasoo dhaafay warar ay baahinayeen telefishinada carabta ayaa waxa ay tilmaamayaan in ciidamada Israa'iil oo galbinaya dad 170 qofood ka badan in masjidkaasi ay gudaha u galeen, taasi oo caro weyn ka dhalisay isla markaana dad fara badan oo muslimiin ah oo dunida dacaladeeda jooga ay si weyn arrintan u taabatay. Israa'iil ma caddayn tallaabadan waxay uga gol leedahay, hase yeeshee shalay ayay tallaabatan la mid ah ku dhaqaaqeen ciidamada Israa'iiliyiinta oo dad fara badan oo Israa'iiliyiin waday. masjidkaasi waxa uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee hadda loolanka muslimiinta iyo Israa'iil uu ka taagan yahay, si gaara qadiyadda Falastiin oo hadda ah midda ugu badan ee la isku hayo. Netanyahu weli kama jawaabin tallaabooyinkaasi ciidamadiisa ay ku dhaqaaqeen, laakiin tani waxay muujinaysaa inay caro xoog leh ay ka dhalatay, isla markaana Israa'iil si ku talagala ay tallaabadan u qaadayso, sida wararku ay tilmaamayaan, iyadoo golaha yar ee majliska dagaalka Israa'iil ay ku dhawaaqayaan goor dhow sida la leeyahay ama xadda soo socotaba weerar ka dhana magaalada Gaza. haddii aan isla wararkaasi ku sii socdo, madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa jeediyey hanjabaadiisii ugu xooganayd oo ka dhana Israa'iil tan iyo inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan. Erdogan ayaa oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu yidhi Israa'iil iyo Netanyahu waxay ku dul ciyaarayaan dab kulul oo aan la aqbali karin, isagoo sheegay in tallaabo kasta oo ciidamadiisu ay qaadaan ay soo dedejin doonto amni darro soo kororta iyo xaaladda oo faraha ka sii baxda. bariga dhexe ayaa iminka u muuqanaya xaaladiisa inay tahay mid aad u adag marka la fiiriyo arrimahan ugu dambeeya ee halkaasi ka taagan. lama oga sababahan keenaya iyadoo lagu guda jiro bisha barakaysan ee Ramadaan in tallaabooyinka noocaan ah oo dareenka muslimiinta caalamka taabanaya in Israa'iil ay ku dhaqanto sida wararka dadka wax taxliilinaya ay tilmaamayaan, laakiin waxay leeyihiin khubaradu waa fariin dagaal oo Israa'iil ay leedahay cidna u joojin maayo. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ka walaacsan 3 saldhig oo dowladda Turkiga ay ka furanayso gudaha waddanka Syria. waxa uu ku tilmaamay tallaabadaasi inay tahay mid amniga qowmiga ee Israa'iil saameyn ku yeelan doonta iyo guud ahaanba maslaxada guud ee Israa'iiliyiinta. dowladda Mareykanka ayuu ku cadaadinayaa in ay ka hortagto in saldhigyadaasi aanu furin Recep Tayyip Erdogan. labada dal ayaa ku loolamaya gacan ku haynta iyo saameynta siyaasadda gudaha Syria. Syria ayaa hadda waxaa hogaamiya hay-atu Tahriir Sham oo Axmed Sharac madaxda ka yahay, waxaana ay u muuqanaysaa in gacan saar dhow ay la leedahay dowladaha Qatar iyo sidoo kale jamhuuriyadda dalka Turkiga. labada dhinac ayaa hadda dadaalkooda waxay muujinayaan in Israa'iil ay ku bixinayso waqtiga ugu badnaa sidii saldhigyadaasi loo joojin lahaa. wararka la helaya waxay sidoo kale tilmaamayaan in Israa'iil lacag gaaraysa $1 bilyan iyo weliba dheeraad ay ku maalgelinayso qowmiyadda la yidhaahdo Druusiga ee ka soo jeeda gudaha waddanka Syria. qowmiyadan ayaa waxay ka mid tahay dawaa'ifta ama kooxaha laga tirada badan yahay ee halkaasi ku nool. warar uu baahiya wargeyska Jerusalem Times ee Israa'iil ka soo baxa ayaa waxa uu tilmaamay in Netanyahu uu hadda doonayo qarash fara badan inuu ku maalgeliyo qowmiyadaasi oo u arkay in Israa'iil isbahaysi iyo bahwadaag siyaasadeed ay la tahay. laakiin magaaladii 3 kiiloomitir u jirtay magaalada Dimashq ee caasimadda dalka Syria waxaa la wareegay ciidamada Syria, iyadoo Druusiyiinta oo calankooda lulaya ay sheegeen si cadna ugu dhawaaqeen inay yihiin shacab Syrian ah, isla markaana Israa'iil halkaasi ay u muuqatay inay ku jabto. laakiin hadda waxaa muuqanaya in dhaqaale fara badan ay ku bixinayaan qowmiyadaasi Druusiga lagu magacaabo. haddii aan ku sii socdo wararka waaweyn ee ka imaanaya dunidana, arrinta u dhaxaysa Shiinaha iyo Mareykanku waxay markaan u muuqataa inay cirka isku shareerayso. markii ugu horreysay ayay tallaabo qaaday dowladda Shiinaha ka dhana dalka Mareykanka, waxaana 10% canshuurta lagu kordhiya badeecada ka imaanaysa Mareykanka, gaar ahaan
alaabaha la xiriira wax soo saarka beeraha ee sida weyn loogu suuqeeyo jamhuuriyadda shacbiga shiinaha. dowladdaasi ayaa ku tilmaantay inay tani uga aargudanayso tallaabooyin horey madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump oo u qaaday oo dhammaantood ka dhana arrimaha la xiriira canshuuraha lagu soo rogay wax soo saarka iyo badeecooyinka shiinaha. tani wixii ka dambeeyay markii madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump uu yimid talada waxa uu kordhiyay canshuuraha uu ku soo rogay qaar ka mid ah dalal fara badan oo caalamka ah. waxa ugu horeeya dalalka Canada iyo Shiinaha uu ku tilmaamay in ay muhiim tahay canshuurahaasi in ay bixiyaan isla markaana loo baahan yahay dhaqaalaha in ay muhiim u tahay kobaca dalka Maraykanka sida Trump siyaasaddiisa wax soo saarka dhaqaalaha Maraykankaba uu ku dhisayo. haddii aan sii socdo dhinacaasi Ukraine, madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa joojiyay guud ahaanba kaalmooyinkii military uu siinayay dalka Ukraine ee dagaalada ba'an kula jira dalkaasi iyo Ruushka. wararku waxay tilmaamayaan in Donald Trump uu arrimahan uga gol leeyahay in la helo nabad iyo xasilooni caalamka ka dhalata, isla markaana madaxweynaha dalka Ukraine Volodymyr Zelensky uusan sii hurin dagaalada ka soconaya halkaasi Ukraine sida uu tilmaamay. Trump oo la hadlay warbaahinta ayaa hore u sheegay in Zelensky uu yahay nin dagaal u ceel qaba oo wali doonaya inuu burbur geysto, laakiin ujeedadu waxay tahay buu yiri Maraykanku in nabad la helo oo aan dab lagu cayaarin sida uu hadalka u dhigay. saacadihii ugu dambeysaba ka hadalka arrimaha Maraykanka iyo Ukraine waxay ahayd wararka ugu horeeya ee warbaahinta sida weyn u soo baxaya, laakiin khubarada ayaa ka waramaya sida ay hadda ugu muuqato in Vladimir Putin iyo Donald Trump ay u noqonayaan saaxiibo dhow oo siyaasadeed marka la fiiriyo samaysanka xulufo cusub oo arrimahaasi sameynaya. telefishinka Sky News ee laga leeyahay dalka Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa barnaamij dheer oo dooda ka sameeyay xaaladda Ukraine, Ruushka iyo Maraykanka, waxaana ay ku tilmaameen dooda telefishinkaasi uu sii daayay in ay u muuqanayso in Trump iyo sidoo kale Vladimir Putin ay aad isugu soo dhawaanayaan. in badan ayaa waxaa isbedelaya hanaankii dunida iyo sidoo kale sida ay xaaladda samaysanka siyaasadaha iyo loolanka awooduhu ay isu bedelayaan. lama oga xaaladan sida ay ku sii socon doonto iyo waliba isbedelada iman kara intaba. saaxiibayaal, qaybtii labaad ee caawa ee barnaamijka taxliilka Barrow Showna inta ayaan kusoo gabagabaynayaa. si aad macluumaad iyo warar kale aad u heshaan kusoo biira YouTube-keena oo subscribe-ka ah. Soonqaad suuban.